السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال صاحبيال كسو دوادا برنامج كلا oo idin soo gudbiyo telefishinka Aqoon TV magacaygu waa Cabdifataax Abduqaadir in ayaa waxaa la sheegay maalin maalmaha kamid ah in uu dhex istaagay suuqa dabadeedna uu kor u qeyliyay oo uu dadkii ku yiri ninkii i arkow muuqayga arkow ha dulminin qof miskiin ah dadkii ayaa ku soo xoomay oo weydiiyay maxaa ku helay wuxuu yiri sheekadaydu waa sheeko aad u yaab badan una murugo badan waxaan ahaa buu yiri nin dulmi badan oo kibir badan dadkana gardareysta maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa uu yiri aniga oo socdo waxa iga hor yimid nin sita xabad kalluun oo aad u weyn kalluunkii baa inta ii cajabiyay baa ninkii waxaan ku iri buu yiri xabadan kalluunka isii ninkii waa uu ii diiday oo wuxuu yiri kalluunkan waxaan u wadaa caruurtaydoo gaajeysan markii uu ii diiday inuu isiiyo xabadii kalluunka ayaan xanaaqay ninkii gacan baan u qaaday oo waan garaacay xabadii kalluunka ahaydna waan ka faramaroojiyay oo waan ka qaatay intii aan soo socday ayaa xabadii kalluunka ee aan sitay ee aan soo dhacay waxa ay iga qaniintay suulka gacanta qaniinyo aad u daran kolkii aan guriga imid xanuunkii waa uu ka sii daray oo aad iyo aad ayay meeshii u soo barartay habeenkiina waan seexan kari waayay xanuun iyo kaar dartii subaxii ayaan ku soo kallahay nin dhakhtar ahaa inta uu fiiriyay ayuu aad ula yaabay oo wuxuu yiri waa in la jaraa suulka maxaa yeelay haddaan la jarin wuu sii faafayaa cudurka ku galay sidaa baa lagu jaray suulkii xanuunkii waa uu iga sii daray habeenkiina ma aanan seexan maalintii xigtay ayaan waxaan ku soo noqday ninkii dhakhtarka ahaa markaasuu wuxuu yiri cudurkii waa uu sii faafay oo gacanta inta hoose oo idil waa in la jaraa iyo faraha sidii buu sameeyay oo gacantii baa la jaray xanuunkiisa inuu iga sii daray maahane wax isma bedelin maalin saddexaadii ayaan ku soo noqday misana cudurkii waa uu sii faafay oo wuxuu sii marayaa ilaa xusulka dhakhtarkii baa yiri waa in la jaraa ilaa xusulka haddii kale cudurka wuu sii faafayaa oo jirkaaga dhan buu gaarayaa sidii baa la yeelay ilaa xusulka baa la jaray ka daro dibi dhal xanuunkii inuu ka sii daro maahane habeen iyo maalinna aan seexan iyo hargeli waayo waxaan ku soo noqday dhakhtarkii inta uu fiiriyay wuxuu yiri xanuunkan xanuun la daweyn kara maaha waa inaan jarnaa ilaa garabka sidii baa dhacday xanuunkii waxa uu gaaray ilaa garabka waxaa la jaray ilaa garabkii haddaba markii la jaray gacantii ilaa garabka ayaa nin dhakhtarka la joogay waxa uu weydiiyey sidee bay wax kugu dhaceen maad nooga sheekaysid waxaan ku iri waxaa jiro nin faqiir ah oo maskiin ah oo aan hadda ka hor xoog u sheegtay oo aan ka dhacay xabad kalluun ah oo uu soo jilaabtay caruurtiisa inuu u geeyo ninkii baa wuxuu igula taliyay in aan ku noqdo oo aan raadiyo ninkii aan dulmiyay oo aan cafis weydiisto haddii kale cudurkan uu jirkayga idinku faafi doono oo uu noqon doono midkii aan u godgalo sidii baan sameeyay waxaan raadiyay ninkii aan dulmiyay ee aan ka dhacay xabadii kalluunka ahayd muddo dheer ayay igu qaadatay helidiisa maalinta dambe ayaan arkay oo helay inta aan lugihiisii isku tuuray oo aan dhunkaday ayaan waxaan ku iri walaalow i cafi ninkii ayaa ila yaabay oo yiri oo kumaad ahayd maxaanse kaa cafiyaa markaasaan u sheegay waxaan iri waxaan ahaa ninkii ku dulmiyey ee kaa dhacay xabadii kalluunkeeda ee aad caruurtaada u soo jilaabatay maalintaa ninkii inta uu ooyay asagiina ayuu wuxuu igu yiri maxaa kugu dhacay oo gacanta kaa jaray qisadii baan ugu sheekeeyay ee dhibkii i raacay markaasuu wuxuu yiri waan ku cafiyey kiisa aad ii imaan lahayd kol hore waxaa laga yaabi lahaa in ilaahay uu ku cafin lahaa oo dhibkan uusan ku gaarin markaasaan waxaan ku iri walaalow waxaan ku weydiinayaa ma ii sheegi kartaa markii aan xabadii kalluunka kaa qaatay miyaad i habaartay markaasuu wuxuu yiri haa waan ku habaaray waxaan ku iri buu yiri walaalow ma ii sheegi kartaa wixii aad igu habaartay waxa uu yiri waxaan kugu habaaray waxaan iri ilaahayow addoonkaagaan ahay risiqaagiina waxaa iga dhacay addoonkaas oo adiga aad abuurtay ilaahayow sida uu iigu awood sheegtay adigana ugu awood sheego kana soo saar calaamad ninkii sidii buu ku cafiyey haddaba daawadayaal arrintan waxayna tusaysaa in dulmiga uu yahay wax aad u xun oo ilaahayna uu necab yahay uuna nooga digay in khalqigiisa la dulmiyo qisadan waxay kaloo ina tusaysaa in ilaahay uu ajiibo ducada qofka madluumka ah ee la dulmiyey mahmaha Soomaaliyeed oo xigmad badanna waatay oranaysay ragow kibirku waa lagu kufaa ka hal la ogaado haddaba
wixii faahfaahin ah iyo wixii fikrad ah fadlan noogu soo gudbi qaybta commentska.